ya nuurto ii waran ma fiican tahay ha gabadhu faanina wuxuu leeyahay beledka inuu xiran yahay ma aragtay ha beledka adaas ku xiran yahay kulaha ya xadaarada hadalka waxa waaye taleefan markaa ku hadlaysa inuusan qofna ku maqal taleefanka aad ku hadlayso wuxuu leeyahay awood hadalkaaga gaaban qofka dhinaca kala jooga uu xoog u siiyo adiga inaa qaylisid uma baahnid marka inaa adintid uma baahnid soomaalida waa arkaysa halkaas maxaa tiri qaarkood saan u soo qabanaa taleefanka wuxuu leeyahay waxaan ku iri yani dhibka ka haysto xataa taleefan ma lagu hadli yaqaano xamarna waa lagu dhashay waa laga yaabaa ya marka jaamacadda markaad gasho waxaa u baahan tahay inaad fahamto hadalkaaga inuu noqdo hadal layin ah dabacsan hooseeya dadka loogu talagalay bes ay hadli karaan laakiin adoo inta ka sheekaynayo oo qofka ku hortaagan uu inta kuu jiro in xagga laga maqlaayo sheekadaada sax ma aha waxay ka mid tahay xadaarad xumada waxaad arkaysaa makhaayadaha iyo markaad tagto cuntada sida loo cunaayo qofka cunto dalbanaayo fargeeto iyo midiyuu rabaa inuu ku cuno hilibka lo'da iyo waa roon yahay laakiin chickenka ama digaaga waxaa arkaysaa qof qadadiisii dagaal kula jira dhibka ka haysto ya siduu midida iyo fargeetada ugu daba ordaayo waxaa arkaysaa laftiyo faniintay oo qof xagga jooga saxankiisa ku dhacday ya lug digaagoo ordaysaa inta kaa maraysa hadda ag fadhiso cuntada xataa fargeetada marka la qabsanayo waxaa arkaysaa sidii tooreydii asagoo haysta fargeetada oo saas dhahayo ya jaamacadda marka waxaa ka baranaysaa xadaara labiska waxa yaraan usoo noqdo labiska waxaa jira dhar gabdhaha ay kalaro midabo ay gabdhaha qaataan iyo midabo ragga uu qaato inaad kala fahamtidaa la rabaa midabka gaduudka ah midabka jaallaha ah midabka buluugga khafiifka ah midabyada noocaasa gabdhaha iskale kalarka pinkiga la dhaho tolmada dharka way kala gedisan tahay inta wiilasha dukaanay tagaayaan fanaanad gabdheed uu soo qaadanaa isagoo ballan laho gabar u socdo waxa waaye fanaanad gabdheedna waa qabaa ya ma garat so labiskana wuxuu leeyahay yani isagana doorashuu leeyahay waxyaabaha kaloo jira ayaamaha fashion waxaa socdo oo dharka la isku dhajiyo waxaa arkaysaa nin oo maxaan ku raay sheeg aate lugihiisa baastafiina camal ah oo surweelka isku sii dhajiyay oo markuu soconaayo u malaynaysid fiiri fashionka haddii oo lugahaga yaryar yihiin surweelka isku dhajinin lugahaga weynayso ya sidoo kale haddaa shuluq tahay qof waxaa arkaysaa oo galuusyada shaatigiisa ay dhahayaan ya fashionka waxaa la rabaa in caqli loo yeelo fashionka waxaa la rabaa wixii ku anfacaya ka qaado laakiin waa la qaataa le maaha okay so taas waxaan ku dhaafaa xagga xadaaradda tan kale waxaa waaye macaamilada wanaagsan maadaama aad kambaska joogto kambaska waxaa jooga dad ahlulcilmi ah dadka ahlulcilmiga ah waxaa waaye inay isxurmeeyaan inay isrespect gareeyaan yani in ay xalliyaan mashaakilkooda si xadaari ah ay xadaarad ku jirto in haddii wax dhacaan dariiqa saxa uu u raaco jaamacaddu waxay leedahay macallimiin waxay leedahay maamul haddii qof kale wax idin dhex maraan inaad maamulka tagto haddaad xallin weydaan magarat so marna laga mid jaamacaddan fiire waxay dhisneed xilligii dagaalada ay ugu xumaayeen xilligii beelbeelsha la ahaa xilligii amxaarada ay joogtay jaamacadda marna wax ma ka dhici jirin maasha allah magarat
banaankeeda wixii ka dhaca wax gooni waaye laakiin kambaskeeda marna wax ma ka dhicin laba arday oo diriraysa kambaska dhexdiisa weligood ma la arkin taas waxa waaye cilmiga ahlul cilmiga yani sida ay cilmigu u maaragtay yani nadiifiyo u tababaro hoggaansanka inay hoggaansamaan ya midda kale waxa waaye oo waxbarashadu ay siiso dadka waxay xoojisaa damiirkooda insaanka waa og tahay waxa waaye maxaa la yidhaahaa greedka waxa waaye markaad wax walba isla jeceshahay adiga inaad wax xaddo inaad wax maasuqdo inaad muxuu ahaa ma garatay يعني وحيابه بدن oo waxa jira qofka damiir kale damiirkiisa u saamaxin laakiin damiirka markuu duruuf adag ku nool yahay waxyaabo badan uu googooyaa ma garatay qofka ahlul cilmiga ah cilmigu damiirkiisa ayuu xoojiyaa wuxuu ka ilaaliyaa waxyaabaha xun okay waxyaabaha xun ayuu ka ilaaliyaa so qofku inuu lahaado damiir uu mas'uuliyad ku qaadi karo oo amaano uu ku qaadi karo oo markii meel loo dhiibo meeshaas inta lagu aamini karo jaamacaddu waxay kaloo samaysaa dadka ilaahay qof walba waxbuu u abuuray qof walba waxbuu u fududeeyey qof walba waxbaa loogu talagalay qofaa loogu talagalay inuu bajaajale noqdo qofaa loogu talagalay inuu injineer noqdo qofaa loogu talagalay inuu dhakhtar noqdo jaamacaddu waxay kala habaysaa dadka qof walba wixii loogu talagalay ilaahay ugu talagalay oo uu ku fiican yahay inay ku hagto ku tababarto si uu uga faa'iideysto ummadana uga faa'iideeyo soo haddii imtixaan lagaa qaado imtixaankaas macnuu leeyahay macnihiisu waxa waaye hawsha lagu diyaarinaayo ma ka bixi kartaa waaye haddaad imtixaankaas ku baasto hawsha waa ka bixi kartaa waaye okay waan soo gaabinayaa waqtigayga wuu dhow yahay kaliya waxaan rabaa inaan qodobkii ugu horreeyo aan ka bilaabay aan ku soo noqdo xadaaradda aad ayay muhiim u tahay reer belednimada magaalo joognimo wanaagga aaday u tahay muxuu ahaa ay muhiim u tahay gaar ahaan xagga wiilasha gabdhaha waa fiican yihiin gabdhaha waa asturan yihiin maasha allah xagga xadaaradda marka la fiiriyo waxaa jira wax dhaxal ku yimaada DNA ama hidda-sidaha qofka gabdhaha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey hidda-side ugu qaybsan yani xushmadda iyo xishoodka iyo brotokoolka wiilasha ma laha hooyaa soo barta markaad yar tahay hooyo markay ku dhaxaysa waxaan uf waaye waxaan shashax waaye waxaan xaax waaye ya tababarka ugu horeeyo iskuulka ugu horeeya meeshaasaa ka soo qaadaa laakiin wiilasha markay gacanta hooyo ka baxaan oo dugsiga ay bilaabaan iskuulka uu bilaabo beledkiisa uu galo waxa waaye meeshiisuu ka miisanaa wiilasha markaas ayagaa istababaro xadaarad xumada waxaa ka mid ah qof mutacalim ah oo wax bartay inuu meelaha candhuuf ku tufo candhuufta afkaaga ku jirto xalaal waaye xaaraan ma ah kow midda kale adaa iska leh yacni qof afka wax kuu geliyey tuu aa leedahay ma jirto wixii afkaaga ku jiray le waaye candhuuftaadii waaye so inaad meelaha ku tufta sax ma aha waa xadaarad xumo inaad candhuuf ku tufta meelaha saa u joog arkaysaa dhinacyada ka tufaayo sax ma aha waxaan kaloo sax ahayn oo wiilasha ay sameeyaan wiilasha ugu badan waxaa arkaysaa nin dhalinyaro oo si fiican u labisan oo sanka farta kula jiro intuu dadka ku sayrinayo sax ma aha iyadana okay waxyaabaha kaloo jiro khatarta ah waxaa ka mid a gabdhaha waan ka qarinaya oo wiilasha ay sameeyaan nin dhalinyaro ahoo labisan oo xataa ama nin oday ahoo arkaysaa khiyaar ahoo labisan oo intuu meeluu taagan yaho halkan gacanta kula jira adeer iska waran ya ya wiil waxaa arkaysaa oo gabar u sheekaynayo ha abaay ma fiican tahay ha iska waran mayse ogabo ha fiican tahay abaay
ما يسوقها صح معها قبلها اللي بيدون كو قبان يعني وحواي مكاتك تا وريا داف ما يكون هذا ما قلت دربك بناك ما يفيرسا ما قلت marka odayaalka waaweyn wuxuu ma sheegi karno laakiin adinka hadda wali wax waa leedin sheegi karaa qofka ku aragtaan la joojiya adinkana joojiya maxaan ku raa sax ma aan soo kooba marka qofka ardayga ah mutacallimka ah waxa loo barbaarinaya waxa waaye inuu asaga guursado oo caruur dhalo oo dawladda xado oo ama shirkadu ka shaqeynaayo xado oo guri dhisto ma aha macnaheedu waxa waa inuu dalkiisa iyo dadkiisa anfaco waayo hees waxaa jirta nin mutacallima uu sameeyey oo abwaan ah waxaan u ordayaa dugsiyada u aadaa inaan dadkayga iyo dalkayga anfaco ma gastay yani ma aha inaan aniga is anfaco maaha adiga waa is anfacaysaabo haddaad labadaas anfacdo dadkaaga iyo dalkaaga adiga waaba anfacan tahayba waxaa jira waxyaabo automatically u imaado laakiin markaad adiga anfacaaga ku mashquusho markaas waxa waaye dadna ma anfacaysid dalna ma anfacaysid